بسم الله والله وهذا هذول يكون إلهي يرتم على أسرنا تيم مرلبات رجينا نصاب بقضي وهذول وربحنا قاضية أما هذا المهد علينا waxaan hadda ka soo guuray deegaan la yiraahdo Baxdo waxaan hor uga guuray oo ka tirsan deegaanka Habaasley haddana waxaan ku soo laabtay asoo wax iska bedelay arag jiidaal ma wax kale soo siyaadin hadda wax bixinta Ilaahay baa le Ilaahay nasrigiisa iyo nacfigiisa nagu deeqo adiga ayadu jiidaal oo markii hore oo ka guurnay sidoo wax ka bedelay oo aan ahayn aan la arag diraac u siyaaday iyo abaar u siyaaday ma wax kale iska bedelay aan ku soo laabanay هذا ولا هو وحي لا يكسيان ولا وشوريا وأنا لو ما ديا وأنا كسول عبني وأقول نحن بقول ربلان هذا ربلان تكسول عبن. هذا مركب ولا محاول دونته. خراب عن راديني وضاق أن كجوبنا هذا وحبا هذه فايدة من كلام نسوق منه عاتبي هذه وحيا رب بدنا نوصل سيادة ساعة ما. dadkii deegaanka oo dhan markii hore u deegaan raacay dadkii deegaanka oo dhan qof meel u deegaan raacay dhamaan waa ku soo laabtaan xarumahoodii hadda waxay u jeedaa xaafada qoys kasta oo meesha deganaa jiray qoys kasta meesha deganaa jiray deegaanka Habaasley meesha ku deganaa wax ka maqan male ruuta dhanka nolosha maxaa lagu qiyaasi karaa maadaama jidaal aad ku soo noqoteen markii horena aad ka guurteen waxa lagu qiimeyn karaa waxdan Ilaahay uusan naga bixin aan hadii la kuurinayay aad u culays badan laga malay karaa xoolaha ku dhaqanta maxay yihiin adiga xoolaha ku dhaqmaa waxay ahaayeen hore waxay geel iyo ari waxba iga joogay هذا ما سنتين مركب حاسة لقى على ديجانك ولا برايوه قليلا وجورني هذا أنا هدي لكنا يجي السيد وقللا ربنا وسنا قدام بين بيدنا يسنوج لنا وصعنا هدي لا يمكن رجينا إنه مدر نوقشبه إلهي إنه هدي هذا بنادني هدي لكنا قعنتي سو حكوا مد إلهي ما رجينا إنه هدي لكنا كورة من إلهي ربنا سيو هدي هذا أنا شرب لنا وحد بنادني وهذي قريب كقاعدة كرا إلهي إنه ما رجع هذي أباربع من مكان dadku waa hidilku xabaara la salax maraya bila kale oo jidaal inay soo socdaan oo qiyaasaya waa la qiyaasaya hadii Ilaahay uusan naga dhax qabatayn bila sidaan adiga aan u baranay 4 ama 5 bilood ka bacdi diraac iyo adiga abaar ay hajirtay hadii xilliga dayasatan kala noqdo waxa ugu baaqaysaa maamulka galmudug iyo hay'adaha samafalka intaba waxaan ugu baaqayaa dadka galmudug ha ahaato ama hadda Soomaaliyeed ha ahaato qof hadda markaan culays dadka wada saameynaya waxaan ugu baaqayaa gacan hadii la kuureeyay Ilaahay baa la laanseeb midda binaadnimo inay la soo gaaraan oo aysan wax gar uga gelin oo ka maamul ahaan dadka diriga guuraaga meel kasta uu joogo waa wada nafaysan yahay qaastaan deegaanka Habaasley aan joogo adiga asaasan u baaqayaa reer galmudug waana mahadsan yihiin wax qabadkoodana waa la bartay dadnimadoodana waa la bartay laakiin isla laabaan ayaga iyo wixii kale to kala qaadan karaaba saakiba qasaba xafadan soo rar waxaan soo raray 9 saac bar saacadana sidii u raray arigii meeyay dadka waxana waa iga dambeeyay waxana waa iga horeeyaan